madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa hore u sheegay in 7 dal oo Islaam ah ay soo gali karaan gudaha wadanka Mareykanka muddo 4 bilood uu ka mamnuucay balse madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu go'aankaasi ka noqon doono ayaa muujiyay inuu dib uga noqonayo rafcaankii uu ka qaadan lahaa go'aanka maxkamadda San Francisco ay isku hor istaagtay xayiraadda socdaalka. Mr. Trump ayaa saxaafadda u sheegay inuu taasi beddelkeeda uu soo saari doono amaro kale oo dheeraad oo dhanka socdaalka. Waxa uu sheegay in uu fursad u haysto inuu amaro cusub soo saaro. Dastuurka dalka Mareykanka ayaa madaxweyne Trump u siinaya sharci inuu soo saaro amaro kale oo dheeraad ah, balse madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay inuusan shaki ku jirin in maamulkiisa uu ku guuleysan doono dagaalka ka dhanka ee sharciga socdaalka dalka Mareykanka. shir jaraa'id oo si wada jir u qabteen Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayuu Trump ku sheegay in tallaabadani lagu soo celin doono dadajinta una soo rogi doono usbuuca soo socda tallaabooyin dheeraad oo ka dhana amniga wadanka Mareykanka. ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa ku sugan dalka Mareykanka waxa uu qalka cad ee wadanka Mareykanka kula kulmay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. labada hogaamiye Mrs. Abe iyo Trump ayaa waxay ka wada hadli doonaan xiriirka u dhaxeeya Japan iyo Mareykanka iyo sidii kor loogu qaadi lahaa. labada hogaamiye ayaa waxay ka wada hadleen arrimo badan oo dan u ah labada dal ee Japan iyo Mareykanka. waxa ay ka wada hadleen arrimaha militariga, ammaanka iyo waliba dhaqaalaha. labada hogaamiye ayaa shir jaraa'id si rasmi ah u wada qaban doona waxaana ay u dhaqaaqi doonaan kadib magaalada Florida halkaas oo kulan kale ay ku qaadan doonaan. ra'iisul wasaaraha Japan Mr. Shinzo Abe ayaa yiri aad baan ugu faraxsanahay inaan la kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo aan ka wada hadalno arrimo badan oo dan u ah labada dal.